waxaan soo daawanay fayraska siduu jirkeena ku galo iyo sidoo kale wararka been abuurka ah ee fayraskaas ku saabsan bal markana aynu eegno sida talaalka ama COVID-19 lagu helo iyo sida lagu sameeyo warbixin arintaasi ku saabsanna waxa inoo haya oo talaalkan COVID-19 kaga hadlaysa Junaydi Faarax xaruntan dadka lagu karantiilay ee bariga London ayay taqaartiirtu waxay kormeerayaan bukaano lagu duray fayraska neefta ku durista fayraska ayaa ahaa dooqooda iyaga oo lacag lagu siiyay si ay uga qayb galaan cilmi baaristan lagu tijaabinayo dawooyin iyo in talaal loo helo fayraskan waxaan isticmaali doonaa dad isxilqaamay kuwaas oo ku duri doono mid ka mid ah qaybaha fayraska corona waxaan isla markaa eegi doonaa inta ay qaadanayso in ay jiradaan dabadeedna waan daaweyn doonaa tani ayaa ah qaab si taxaddar leh dadka loo qaadsiinaya fayraska iyadoo oo la doonayo in si weyn wax looga ogaado fayraskan ka qaybgalayaasha ayaa kiiba la siin doonaa $3,500 waana in la jiifiyo qolkan oo kale muddo 2 usbuuc ah qolkan sidaas uma weyna soo lagama yaabo in dadka qaar ay dhib ku noqoto in qol sidan u yar ay joogaan 2 usbuuc dadka qaarkiis waxaan dhihi lahaa caqabad ay ku noqonaysaa sidaas daraadeed ayaan marka hore u hubin doonaa inay ku habboon yihiin inay ka qayb galaan waxaa muhiim ah in aan caddayno in ka qaybgalayaashan aan lagu duri doonin COVID-19 oo ah mid ka mid ah walxaha dhaliya Fayraska Corona laakiin waxaa lagu duri doonaa fayras ay tayadiisu yar tahay kaas oo keeni doono xumad aan sidaa u sii weynayn saynisyahanadan ayaa aaminsan in cilmi baaristan ay wax weyn kordhin doonto cilmi baaristan ayaa gacan weyn ka geysanaysa in si degdeg ah loo sameeyo daawooyinka ka hortagga fayraska waxayna keenaysaa inaan wax weyn ka ogaano in daawooyinkan ay faa'iido weyn keeni doonaan iyo in kale talaalka ayaa u muuqda tan kaliya ah ee looga gaashaaman karo masiibadan fayraskan ayaa midayay saynisyahanada adduunka in ay hal meel uga soo jeestaan tartanka waxaa loogu jiraa sidii fayraskan dawo loogu heli lahaa kama dhexeeya saynisyahanada waxaana dadaal dheer la gelinayaa in la helo talaal fayraskan wax ka qabta waxaana jira habab tiro badan oo cilmi baadhis ah oo in badan socday kuwaasoo iminka maraya meer miladhal ah jooga xaruntan cilmi baarista ee Wiltshire Britain ayaa usbuuca soo socda ka bilaaba doonta in talaalka lagu tijaabiyo xayawaanada tijaabada dadka oo si aad ah looga taxadaray ayaa ka bilaaba doonta bisha dambe jaamacadda Oxford cilmi baaristan ayaa ah mid adag oo degdeg ah nolosha in badanna ay ku xiran tahay